halkaas had arkaysaan waa shinidii ayaa taalo maadaama ay shinidii taalo ayaa waxaan sameeynaa wax yaano inspection oo baarid ku sameeyno shinida marka qaabka baaritaanka loo sameynayo waa marka hore geedkaas oo smokerka ayaa lagu buufin doonaa marka kadib ayaa lagu magacsiisaa marka insha Allah waxaan jeclahay inaan si fiican uga dhargi doono qaabka ay wax u dhacayaan oo dhan marka step ayaan insha Allah u sameyn doonaa marka waa inaan si fiican u soconnaa marka qaabka loo sameynayo waxa weeye marka hore smokerka ayaa soo qaadaysaa waxaad ku buufinaysaa afka hore ee qalwada dabeedna waxaad sameynaysaa daboolka kore ayaad ka yara qaadaysaa wax yar ayaa shinida dejinaysaa waad ku yara aaburaysaa sakina kadib shinida way soo wargelinaysaa daboolka waad ka qaadaysaa daboolka waxaa la dhigaa inta badan meel ayada u dhow oo saa uga sii fogeyn hadda halkaan ayaan iska dhigaynaa geedkan kore ayaan ka qaadaynaa oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa shinni reeb boqorad reeb ama waxa la yiraahdaa queen excluder oo boqoradu inaysan kor uga soo bixi karin sidoo kale waxa la dhigtaa dabool kore ayaa la dul saartaa dabeed waxa la sameeyaa shinida frame-ka u horeeyo ayaa la soo qaadaa hadda sida arkaysaan anigu gacmahayga iska qaawan yihiin wajigun baan ka yar xatay kaliya jirkayga kale oo dhamaartay way iska soo galgali kartaa marka laakiin waa inaad geesinimo iyo leedahay magaciisa maxaa la yiraahdaa haddii aad ka baqayna ku waxayso oo yara kacdo shinidu waa inaad xogaa yara buufisid haddii shinida ay wasaq leedahay oo meelo wasaq ka soo fufuushay wax jiraan shinni meed aad ku aragtid waa laga yara fufujiyaa waayo hawsha ayay ka mid tahay aad qabanaysid ama aad baaraysid hadda waxaan sameynaynaa frame-ka u horeeyo ayaan soo bixinaynaa waxaa jirto bir lagu shaqeeyo tool birta toolka hadda ma arko ma haysto haddeertan laakiin insha Allah birtaas ayaa maartay hawlaha marka la fulinayo lagu fuliyaa laakiin hadda gacanteeda ayaan iska timaadayaa marka inka frame-ka u horeeyo waa yar cariiri meesha ku jiro marka soo bixinaysa wuu yar adag yahay frame-ka si tartiib ayaa loo soo bixinayaa macal asaga shinidiis hadda frame-kan wuu xiran yahay waa 7% ayuu xiran yahay frame-kan marka first frame-ka u horeeyo saas kale ayaa loo yar dhigaa waxaa laga fiiriyaa geesaha oo dhan baa laga yara fiirshaa meel yar oo agteeda ayaa maarta laga yara dhigaa si aysan shinida aysan waxaysan marka frame-ka labaad baa la soo saaraa waa la fiiriyaa sanadkiisa hadda malab baa ka buuxa asiga lafirkiisa malab ayaa sidii waxa uga buuxo dabadeed waxaa la sameynayaa kan kale ayaad fiirinaysaa asagana malab baa ka buuxo haddii ay shinidan maartay hesho hadda macnaha 2 bari 3 bari oo qorrax haday heli lahayd way si fiican ayay maartay malabka u buuxin lahayd laakiin cilada jirta waxay tahay malahan maxaa la yiraahdaa roob iyo qabow ayaa jiray weegii hadda soo dhaafnay marka sida daraadeed ayay u sameyn weyday ayaan isleeyahay anigu marka oo maartay roobka markuu jiro gudaha ku jiraysaa malabkii bay cunaysaa marka ma fiicno xilligaas walaata wana ka sii taxadartid oo maartay aad magaciisista smokerka si uu kaaga damin oo kala maanaad wax yar marka joogtid wax xoogaa aad yara buufimaha dhag ka siisid si uu dabka u yara kaco marka ala kulli xaal shinida markuu roob uu jiro ama qabow jiro meel ma aadayso qalwadeeda ay ku jiraysaa markaasi waxay dib u cunaysaa oo dib u quudanaysaa malabkii ay maxaa la yiraahdaa horay u samaysay hadda sida aan arkayo waxa weeye malab kaliya ayaa meeshii ka wada buuxo marka taa ayaa keenaysa maartay in waa good حقيقة
xilliyadan oo kale waa xilliyada liyaha miid fataha la yiraahdo ama ay malabka samayso xilli ilmay dhalaysay xillina malabka ayay sameeynayay marka hadda sida aragna waa xilligii ay sameeynayay maxaa la yiraahdaa malabka hadda waan iska celiyay faraamka sidiisa ayaan u celiyay xogaa weerar ayay soo yara qaadaysaa marka waa inaad iska celisid oo iska ka taxadartid waayo markay shinnidu malabka haysato shinnidu markay malabka haysato waxay samaysaa weerar fara badan hadda way soo yara weerartay marka si aysan wajiga kaaga qaniinin oo kale iyo maarta waa inaad markiiba iska dabooshid marka biidnillaahi rabbi halkaas ayaa hadda hawsha ku joojinaynaa sidiisa ayaad ugu celinaysaa geedka kore daboolkiisina si ayaa u saaraysaa xaaladeedana waad la socotay iyo qaabka u shaqaynayso iyo inuu malab ku jiro iyo inuu ku jiro waa aragnay marka maadaama aragtay waad iskaga tegi kartaa hadda waxaan jeclahay in aan fiirino shinni kale oo iyadana agta la midan kale sidii oo kale ayaan ku sameeynaa iyadana afka hore ayaa laga yaaraa qiicinayaa waa la wargelinayaa dabadeed waxaan sameynaynaa dhagaxan meesha yaallo ayaa laga qaadayaa meelaha kale ayaa dhigaysaa matalan meel agteeda ah waxaan sameynaynaa hadda kale sidoo kale inspection kaleeto daboolka weynaa oo saarnaa oo kale ayaa kana saaran waxaa jira xayawaano cadow ku ah shinnida oo matalan sida caarada oo kale diirdiirta oo kaleeto waxaas dhan marka waa inaad xataa ka baartid inay soo gashay aageeda imaaday oo kaleeto haddii aad ku aragtid xataa aad ka fufujiso ka dishid oo kaleeto waa wax loogu talagalay oo in maartay inaad ka hortagtid haddii kale waxa weeye hadhow waxay kaa noqonaysaa waxaago dhan hal bacaad lagu lisay oo waxaa kaa galaya shinnidii baa kaa galay maxaa la yidhaha caarada kaa galayso diirdiirtii baa kaa galayso waxaa jiro geed jiir la yiraahdo oo maartay jiirka caadiga ah oo isna qalwada sidoo kale ibtileynaya ayaa jiro marka waxaas oo dhan ayaa marka rabaa inaad ka taxadartid hadda waxa shinnidii waxaan sameynaynaa eedanfkeeda wili xogaa waa inaad iska yara waabisid haddaadna waabinin oo markaas aysan ogaanin in shaqa ku socoto waxaa laga yaabaa inay weerar iska bilbilowdo oo ku dhibto oo maartay ay iska kaa celiso marka hadda midda nafkeeda waan sidii tii oo kale ayay adiga nafkeeda ila tahay inay hawl fiican wadato jawigeeda anigu waa ila fiican yahay marka wax dhiba ma lahan ayadana waan iska dabooleynaa halkeeda ayaan uga sii tagaynaa biidnillah marka daboolkeedii ayaan ayadana sidoo kale iskaga celinaynaa daboolka weyn saas ayaa loo saaraa ayadana waxaan fiirin doonaa midaan oo ayadana 4 dabaq ah 4 dabaq ayaan fiirinaynaa waa shinni xoog leh waxa la yiraahdaa strong colony baa la yiraahdaa tan qolayto ama kooxda xoogan ma aragtay aadka u tabaraysatay ayaa la yiraahdaa waayo sanduuq 4 sanduuq bay ku jirtaa waa shinni aad u xoog badan way marka kooxda 4 shinni 4 kooxda hadda halka sanduuq laba sanduuq ku jirto ama kooxda halka sanduuq ku jirto waxa ka xoog badan oo isku bax oo is haysto kooxda maxaa la yiraahdaa 4 sanduuq ah waayo waa isku hooyo waa isku bax waa isku shaqo cadowga si fiican iska difaacanayaan markay maxaa la yiraahdaa saas loo qaaciyaa cadowga iskaga difaacayaan wax qabadkooda kala si waxa uu qabanay karti la'aan ay wax u qabanayaan marka taa ayaa waxay keenaysaa inay noqoto koox xoogaysan oo aad iyo aad wax u qabanayso
marka hadda saan arkayno nafirkeetan way degan tahay shinida maadaama waqti ay ku jirto ay soo wada xarootay oo meesha ka buuxdo xilliga qorrax dhac oo kaleeta iyo waxa weeye galabtii ay soo wada xarootaa meel ma jirto taa ayaa waxay keenaysaa in maxaa la yiraahdaa ay kooxdii oo dhan meesha iskugu imaado oo xabada aysan ka maqnaynba markaas kaleeto lama baaro lamana furo hadda inkastoo iska furnay laakiin xilligaas kale lama furo inta badan waxaa la furaa xilliga hore ee aroortii oo ayaduna kala tagto oo foof tagto oo maalinta hirgeladii duhuradii oo kala camal baa la furaa galabtii lama furo inta badan iyo aroortii hore hiirta waa bari horena lama furo waayo waxaa jirta markaas kale way ka buuxdaa carradii ayadiiba carradii dhan ka buuxdo xaqiiqatan halkaana waxaa jirta shinni kale ayaa ayadana ku jirto oo laba sanduuqa ayadana sidoo kale ayaan inspection ku samayn doonaa afka ayaa marka hore laga yara qaacinaya afka marka laga qaaciyo gadaal baa laga maraa inta badan waayo laba raba shinnida afka hore waa meesha isticmaasho dhagax ayaa laga qaadayaa dhagax markaad ka qaadid qaybtii daboolkii sare ayaa wax yar maartay asna sidoo kale laga yara qaadayaa balaan fiirino daboolka kor ayaa laga yara qaadayaa wax yar baa lagu siinayaa dabka waa loo yara kaadinayaa markii loo yara kaadiyo dabadeed ayaan ayadana insha Allah furaynaa marka daboolka aad ka qaadid daboolka meel agtiidaas loo dhigaa hadda waxaan fiirinaynaa kor baan ka fiirinaynaa kaliya bacdan inta badan waxa lagu tagay roobka iyo ka celiyaan waxyaalaha magaciisa ayada isku dhajisato ayada nafkii hadda kooxdan waxay iga muuqato inay koox yar shaqaysanaysa ay tahay oo aad iyo aad runtii jawi fiican baa iga muuqdo marka ayada nafkeeda waan iska daynaynaa wax fareemo ma soo bixinayno daboolka sidiisa ayaan ugu celinaynaa kooxdu marka ayada is dejinayso oo maartay isma waalayso way ogtahay qaacaasa ku filan waxaan kale haddana sidoo kale kooxdan kale og taallo ayaan ayadana sidoo kale wargelinaynaa afka hore ayaa waxyaar lagaga buufinayaa markaad ku buufisid dabadeed gadaal baad ka maraysaa sidii tii hore oo kale waa inaan ka qaadna marka dhagixii korka ka saarnaa waxaan samaynaa sidii tii hore aan samaynay oo kale ayada nafkeeda waxaan samaynaa insha Allah daboolka kor ayaan saaw yara qaadinaa waan yara qaacinaynaa waa u yara daynaynaa sakina ayaan u kaadinaynaa si aysan ayada nafkeeda dhib iyo dhibaato marka kadib ayaa daboolka wax yar laga yara qaadayaa shinnida hadda bannaankii taalaayo waxaan arkaa inay aad iyo aad u shaqaynayso oo koox ayada nafkeeda xooggan inay tahay baan hadda arkaa aniga runtii intaas ayaa muhiimadda ah inuu sanduuqa eber yahay oo ka guurtay ama tabar daray ama si un baaba'san tahay ayaa la rabaa inaad jeegaraysid muhiimadda waa intaa kaliya inspectionka kale baaritaanka kaleetana waa mid macnaha aad gudaha loo sii dhacayo de fareemada la fiirinayo marka taa insha Allah hadda qasdigana ma ahan marka hadda halkan waxa yaalo saddex xabo halkan taalo maxaa la yiraahdaaye lix sanduuq xaga taalo iyo afar sanduuq halkan taalo marka insha Allah maalin kale ayaan si kale u sii sharxi doonaa intaas ayaan maartay ku soo gaabinayaa hadalkaygii wa billahi tawfiiq